وأقلكي سوماليلاند لقاقا دواقي أما lagu go'aamiyey hadba sida loo yaqaano dhir baa lagu wareejiyey marka nolosha aqaladaas u leeyahay noloshaas masha allah guryahaas oo dhan buu leeyahay waa compoundka intaa leeg guryahaas buu leeyahay meel aad u qurux badan runtii guryo fiican ku oli jireen marka qaybo ka mida weeyaan guryaha uu ka kooban yahay bal markaa gudaha ayaan u geli doonaa waan eegaynaa kan waa daaqad weeye taasi kana waa daaqad xaggana waa albaabkii daaqadkaa laga geli karaa aqal sabad weeyaan xaggan xoogay repair yar u baahan runtii guri aad u qurux badan shaqo badan u baahnayn xaggana waa qol laba daaqadood leh guryihii sida qurux badan loo dhisi jiray marka hool yar un baynu arki jirnay aqalkii somaliland lagaga dhawaaqay hoolka uu ka fara badan yahay kaas saddex qol qol kale kana waa qol kale xaggaana suuli baa ku yaala waa guryihii xafiisyada dowladda kana waa hool yar oo dhexda ah maasha allah ya marka xaggana waa barandhihii waa guri kana xafiis iyo guri wuxuu yahay ma kala garanaya waa mid kale gurigii laga dhawaaqayna waa kaa ama lagu go'aamiyey somaliland kana waa xafiisyo kale laba qol oo waaweyn daaqad saddex daaqadood leh sadarkiisaan ruufkiisa xitaa xaggana waa daar kale maasha allah compound dhan qurux badan oo runtii wax badan laga sameyn karo xaggan oodaa lagu xidhay عليكم السلام يا عدل أي
waa main hallkii lagu shirayey maalintii 1991kii shirarkii Somaliland lagaga dhawaaqayay ay ka dhaceen. Maaha sida la sheegay, maaha meeshii lagaga dhawaaqay. Maanta waxaan ku sugannahay aqalkii Somaliland lagaga arriminayay markii lagu dhawaaqayay. saasuu maanta u egyahay. runtii waa maxfas, waa taariikh la guurta ah sida aad aragtaan. xafiisyo yaryar buu leeyahay. waa howlkii meynkii la fadhiyey ee lagu arriminayay. xitaa marmarkii baa yaalla oo midh qabin xabadtaas ma qabo. in yar oo repair buu baahan yahay gurigan. xitaa haddii sidiisaa loo daayo waxba ma qabo. ya waxa ii hadhay 1 minute daartan. ya هاي waxaa soo guryaa mashallah tabarakallah. السلام عليكم. والله halkani waa aqalkii lagaga dhawaaqay Soomaha Somaliland. Soomaaliga saxo dadkan 90 dhashay maxaad gacmaha la taagaysaa dee saani u hadal waxaad saxaysa sax. waxa weeye guriga waa loogu tashaday laakiin dhawaaq gobolka laga dhawaaqay. halkan waa halkii lagu shirayay, waa hoolashii lagu shiray. go'aanka lagu sii qaatay. laakiin dadku banaanka geedka hoostiisa way fadhiyeen Soomaa. Mustafa walaalo adigu fiimka waxa doonayaan si official u duubno oo wanaagsan oo aan sidan ahayn. ma fahant haddii taariikhda la saxay si wanaagsan baa loo saxaa. marka marban ku soo noqonay cali qalif kale wuxuu yiri cali qalif kale lagu yiri odayaashii wax ka saxay baa Soomaaliland goon istaageeda ka tashaday. marka maxaad ku diidantay maanta adeer markaa jabhad bay ahayd oo ka baqaynay buu maantana waa dawladda wala xisaabtan saasi ya agtaydan mariya marsan ya agta ya Allah kan kasira